نعم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. waxaan rabaa dhammaan dadka muslimiinta ah iyo dadka aaminsan qur'aanka kariimka ah qiimaha qur'aanka uu leeyahay idin sheegaa. soo kitaabkaas waa kitaab qur'aan ah sidaad u jeedaan waa kaas qur'aan kariim waa baawarkan aniga iskale xalaytoo gubtay baawarkan xalaytoo gubtay alaabtii baawarka saarneed oo dhan waa gubatay gudihiisa tusi ama gudihiisa arag gudihiisa sidoo noqday arag wixii dhan waa gubtay kitaabkan wallahi intuu saas u saarnaay meelihii ka dambeeyey waa gubteen intu waa gubatay wax dhan waa gubtay kitaabkii markii aan ka soo qaaday fiiri meeshii uu saarnaa calaamadiisa xataa waa soo bixaysaa subxaan allah meesha uu saarnaa calaamadiisa waa taas oo kitaabkiina waa kanaa oo weli uu yahay xayi kitaabkii xayi waa wax ka gubtay oo ilaahay oonta ma jirto marka ilaahay subxaanahu watacaala markuu dhahay innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu laxaafiduun ilaahay wuxuu yidhi qur'aankaas annagaa soo dejinay annagaan xafideen subxaan allah ilaahay soo u xafida arag kalaamkiisa baawarkiina arag waraaqii kale arag wixii kale arag fiir xaanshooyinkii kale mujadaa xaanshooyinkii kale dhan fiirisay noqdeen asiga laakiin arag waa kaas marka waxaa ogaanaysiin qur'aanka inuu dhedhel ahayn meeshii uu fadhiyay intii kale geesiisa dhan wallahi ewer waa gubtay asigana waa meeshaasaa xir qaac bas madowgaas ka gaaray xataa calaamadii waa ku taalaa fiiri oo alqur'aan alkariim calaamadii xataa waa ku taalaa meesha ugu weynay marka sidaas waxaa la soconaysiin in uu qur'aanka kariimka uu ahayn wax dhedhela wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakatu